madaxweyne ku-xigeenka qaranka Somaliland iyo mas'uuliyiin ka socota shirkadda Sankabur New Slick Power Energy ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhigay warshad cusub oo sifayn doonta shidaalka qaydin waxaana faahfaahin ka bixiyay sarkaal ka socda shirkadda New Slick Power Energy isla markaana ku hadlayay afka shirkaddaasi maalgelinaysa mashruucan lagu baadi goobayo ama laga gamay dhalinayo shidaalka ku duugan qaranka Somaliland提供廉价的、比较低廉的电力，助力当地基础设施建设的发展，并惠及民生。同时，生产汽油、柴油、煤油、液化气、重油、沥青等优质燃料产品，将极大地改善索马里兰及周边地区优质燃料供应的市场格局，为索马里兰基础设施建设提供大量本土的原材料，并为未来的化工、纺织、轻工业等领域提供优质的原材料，为索马里兰的经济腾飞和快速发展做出贡献。marka uu mashruucani dhammaado mashruuca qaybta wejigiisa hore waxay siin doontaa dadka reer Somaliland electricity ama light jaban qiimihii bay siin doontaa muwaadiniinta dadka reer Somaliland waxay sidoo kale mashruucu soo kordhin doonaa in la helo ama kaabayaasha dhaqaalaha in arrimahaas ka soo baxaya wax badan lagu qabto dadkana horumarkooda uu hore u socdo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wuxuu sidoo kale hadalka ku daray oo uu yiri waxaanu sidoo kale aan shirkadayadu ay suuro gelin doontaa markay arrintani ku dhaqaaqdo in dhaqaalaha jamhuuriyadda Somaliland uu ka kari doono dhinacyo fara badan sida aan mar horeba soo xusay sidoo kale waxa iyagu halkaasi hadal ka soo jeediyay maayirka magaalada Berbera Maarayaha dekedaha Somaliland iyo barasaabka gobolka Saaxil wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Somaliland waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaan leeyahay waa fursad qaaliya dalkeenu wuxuu dhaqaaqo u hayaamay horumar kii hadlayaabaha iska waxaan u dhaqaaqnay oo hayaanay waa horumar waa shaqo waa warshado haddii jidkan imkaan soo maraan ka soo baxayno aynu naqaanay jidka isku xidha burcay iyo Berbera isku xidha wuxuu isu bedelay jidkii warshadaha waxaanu fadhinaa goobtan waa goobtii warshadaha shamiitadii baa ka naga xigtaa waxaanu soo dhaafnay warshadii iyaduna daqiiqadoo la furi warshada dhismaha ka bilaamayo oo runtii qiimaha ay leedahay aan la soo koobi karayn oo maalin taariikhiyeed ah waxaanu leenahay oo aanu soo dhawaynaynaa cid kasta oo maxaan ku dhahay dalkayaga maal gashanaysa waa soo dhawaynaynaa waxaan soo dhawaynaynaa cid kasta oo gobolka maxaan ku dhahday maalgashi iyo horumar ku soo kordhinaysa aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa inkastoo nimanku siiraysa yihiin ninka halkaa fadhiya cidin haddii gacantiisa aananu helin oo murugii aan naqaanay oo kale aan la kulanno desanu way dhacdeen aad iyo aad u baaqsiya isaguna Berbera oo dalkan maalgashanaya waxayna noo furaysaa fursad aynu ummadeena ku horumarin karno waxa la ogaaday waxaynu wax ku horumarin karnaa waa dhaqaale iyo maalgashi siyaasadda xukuumadda koow waxa ka ah in la abuuro wasaaradda maalgashiga u gaara taasi waxa weeye waa siyaasadda guud ee xukuumaddeena waxa kale oo muhiim ah inaynu imika insha Allah u jecel lahay in la soo keeno wax la yiraahdo public and private partnership triple-bigi gabagabadii waxa isagu hadalka soo afxiray madaxweyne ku-xigeenka qaranka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici waxaanu ku ammaanay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii looga hirgelin lahaa magaalo xeebeedda Berbera warshad cusub oo iyadu soo saari doonta ama sifayn doonta shidaalka ay wuxuu jiray ayara magaalooyin daynaha baska daaraha dhaadheer weynooda gaari hor jiro lama jirin markaa booro basna ma jirin daynana ma jirin daynana ma jirin ayara magaalooyin hor jooyna gaari daynaha ku luuqayn jiray daynaha baska daaraha dhaadheer maanta hadduu ilaahay soo celiyo wixii uu sheegay boor lagu sheegay dee way muuqataa Soomaaliya wayna waa gaari waxaa iyo wax ka waaweyn bay ma dooneen ayara leenahay war markay dib dhacdana shacabka reer Somaliland waxa leeyahay war intayna qaylin aan soo gaadho waxa way dhici karaan
صح يخلط وحود كران وعشان كل السومالات مركب قيلية وحلاها أنا السوق قال له وهاوش السوق قالوا استناه أنت حتى السوق قال له حرقة وحماية لكن سيدنا تبدأ من مكابة وحسكارة كبير صدق لما قلوا إذا مركب ميلو استاجنوا ضلك يحقلوا رجلوا تاسو حلاها إذا أول ما كوها لنا يدق كينو كوها ليا السياسي كينو كوها ليا برواقنا فرح بدنا الشيء إن بدنا بهرجوكتا إن بدنا بهرجوكتا اللي وربطك إنه عسل خطة سنة بدك اللي عاون قبينا قبي كده ياخد سنة وعلى شمال أسكت صبرته هذه يبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركي كوباد شركة نوعنا اللي جاهر كليو قرن كصوماليلان وعبد الرشيد مبارك عبد الرشيد سول كوبشوك تي في بربرة